nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo insaga un baanan maqlayn hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdillaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen sida innaku aan u shaqaysanayeen sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee
مخلوقا كو موغدا مخلوقا دركيسا لكن خالق لما أركا أدونك أنت اللي جوغو جركا دركيسا لكن روح ذا لما أركو الدوية ذا دركيسا لكن آخرة ذا لما أركو أنت أدونك اللي جوغو منافع ذا العقد دركيسا لكن منفعة الصلاة دي منفعة الثواب كما أركيسد وغيب آخرة تالك وقوتو سندونا شيء ما أنت مشاهدات كإنه موغدا أيا هدوت ولا نقون دونا مغيبات وح كاقر صوميب نقون دونا شيء غيب كما أنت كاقر صون وحاو نقون دونا وحرت هذه ما دود أركتو أيو نقون دونا ما أنت أدوية دا إنه موقتا آخرة إنه موقتو لكن قفكم مركو أدوية دا كي انتقالو دينتو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وحل أورندونا داهي حجاب أيا كاسرنا نولشن لكن ما أنت داهي حجابك كاسر وان كاقادني أرقاقو بوا حديد بقفك اللي أورندونا وأدوية دي بان نقون دونتا مش غيب بين نقوني دونتا عيال كيسي دوبر كيسي داري كيسي أدوية دي سي يا لعق تيسي ولا قريني دونا وحمركا واركي دونا عمل كي أدوية دا وصوقبتي هدو الشر أهانا وحواركي دونا عقوبة دي سي عردي سي هدو عقوبة دي إلهي عردي بو أركيا هدو خير أهانا ثواب كي أجر كي خير كي حسنات كي بو أركيا أدوية دي وحي نقون إسا وح كاقر صومي آخرة دينا وحكو موقتين نقوني دونتا مركز مركا إلهي تبارك وتعالى أدونك إنت عن جوغنا لما أركي كرايو لكن آياتك إلهي بالله أركيا ومن آياته الليل والنهار هبينكو آيات ويان آيات ومحي معنيه يقول وعلامة إلهي جريتان كيسا لقو قرانايو مالنتو وعلامة إلهي جريتان كيسا لقو قرانايو قوغا إيا جلالك وعلامة إلهي جريتان كيسا لقو قرانايو noloshiya geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo labiyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayb oo la inaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeega arkaysaa dhegta maqalkeega arkaysaa lugta socodkeega arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa arkaysaa laakiin ruuxda bini'aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay way u ooyaan haddaad tiraahdo maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jirhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay ee nidaamul qayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu leeyahay aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dul yaallo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galaba markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oon ku noolahay reer Jabuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolaa letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله ما سعته
shifaadu xag ilaahay bay ka timaadaa dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan laakiin risiqu xagga ilaahay buu ka imanayaa waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan keligii rajee keligii ka cabso keligii baryo baahidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lillaah wa abqada lillaah wa acطaa lillaah wa manaca lillaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakadii muslimiintuna xagga ay joogaan gaaladuna xagga ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhacoo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakadda iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyey buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadhaa i soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lilaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida inakuba aaladan yare imika aan haysaneen moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xuralcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daaloo soo gaadhayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha
marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونان لأن حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي وان جفني وان هردني هردد محن نقصو كعيي بولي markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yowm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla wannahaara آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايل هيدي آية الليل آية النهار نولشن الدنيا أن كنا لهاي ومالين يا هبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسنيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يا هبين قبرك هدي لغو دغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نو شيغو يري قبرك وا لبا ميد ويان اما وروضه من رياض الجنه اما حفره من حفر النار مؤمنكين بربرها جنده كميدا لوغا دغيا gaalkiina waxa looga dhigayaa godgododka naarta kamida looga dhigayaa ninna uu hurdaa oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeena wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan مالك قيامه صورة الله أفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيدا لا إله إلا الله أهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسردي الندامي مرق لي أركي مايان وحاد موداب ونبي قول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت اسكهر قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحان كم هذنا نحدنتي مرقتي أنك النقاقاذي ربي جاي واكي دافتان كبنا إيه شكورك هاويان إيه أفعاشا وناكسني أدون كل ما دور رالك كجن نقضي ويان لأنه يصوب حيان يوم القيامة ما لين تسرجوجا ويوم قرآنك يوم بوشيجا هبين مشيجن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسد هبين كدون دون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري
أفرتن كونو سنة ولا جوجي توبان كونو سنة حسابتها كل دماني دون تبو يدي أفرتن كونو سنة ويا سيد الله تاجنان دونا توبان كونو سنة حسابتها كل دمان دون نين عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يدي نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدبادني بودي وان نبت قلبي بودي مرقا النبي يقول صونقو سيادو كل نبت قشي بو كيدي بلي شك وعد وا كريم إلهي وا كريم هدو دون اسكا كايا عفين بودي معيد با سكا قبسان يسيبو يدي وا كريم